barnaamijka ka hadlaya magacaygu waa Cabdi Fataax Luulka waan ku soo dhawaayay barnaamijka ku dhawaa Cabdi Fataax waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kan dad badan baan caaw ku daawanay waxaan rabaa inaan halkan fariin uga reebto adigoo ra'yigaaga isticmaalaya aan qof kale fikradiisa qaadanaynin inaad halkan fariin uga gudbiso gabdhaha isticmaala dawooyinka waa kala duwan yihiin dawadeen macnaa dawo noocyada dawooyinka midabka bini'aadamka maqaarka bedela make up ma dawooyinka iftiinka bedela make up waa wax marka la isticmaalo iska dhaqan laakiin waxa bedela midabka bini'aadamka oo sida gabdhaha sacdeeyo kala horta anigu waxaan leeyahay fikrad ahaanteed haddaan ka dhigto gabdhaha sacdeeya waa gabdho maxaan ku dhaayato laga yaabo qaar inay madoobaayeen qaarna inay cadaan qaarna inay maariin ahaayeen oo iscadeeyey waxaan leeyahay waa iscadeyseen haddana cadaantiina bartiina ka sii wata haddaad iska daysaan make uptaas aad iska daysaan dee ilaahayna waa ogay idinkuna ogtiin saa noqonaysaan ma garatay marka diyaanadiina bartiina ka sii wata waxaa kale kuwa kale oo maxaan ku dhaayato madowna idinkuna iscadeeya intaasaa kula talinaya waa Cabdi Fataax Luulka aad baa u maasantay daawadayaal haatan dhinaciga kale waxa taagan qalbi xoogaa qadka oo qurxan qalbi su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo halkan fariin uga reebo gabdhaha isticmaala dawooyinka midabka bini'aadamka bedela gabdhaha waxaa leedahay iskaya waxaas عربير وشيل قلبي أدو ما تستوعب برنامج برنامج كبوم بالشو دفع سؤالات صدباتك خاطرنا داود يا شنو تحكم بالك برنامج كبوم بلا تحكم هربين ودي فرين هالكا وغيرها وحنا قبلها ما كانت استعمالات وين بدنا تجي بنادم اليوم قبلها دولة استعمال waxaan leeyahay اليوم iska sii wata hawshin kulay markii la saaray inii gasmo wada yar buu ka soo iska war saaray uftiyaas kaarkii furana iska sii wata kusoo برنامج كبوم بلا kusoo dhawaay magacaygu waxa weeye Salaaman baa la yiraahdaa Salaaman barnaamijka ma la socotay ayaamahan baa la socdin iyo luqadan ka daawanayay khad fariin u reeb gabdhaha marka ayagu midabkooda bedelaan gabdhaha midabkooda bedelaan waxa fariin ugu reebi lahaa iska sii wata meeshii la ka kaanasan hadda iska deysaan gabdhaha ismariyana abood waaniga marka weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii boonbala daawadayaal haatan dhinaciga waxa taagan adhawaysa magacaygu waa Cumar baa fi taa ka hadlo fikradeeda waxaan dhihi lahaa gabdhaha sacdeeyo ragbigana qiyaami magarat midabkooda nafsadooda waa qiyaamaysaa magarat marka saaxiibo wax xun inay iska daayaan oo talin lahaan fikrad ahaantii Cumar aad baa u maasantay sida quruxda badan barnaamijka uga qayb qaadatay daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii boonbala haatan waxaa dhinacayga soo istaagay حالي كسر برنامج ما سمعت سؤالها يا موضوع على فرين وهي قبلها يوم ما كانت ميد كذا بتلا ولا Soomaaliyeed waxa kula talaa in iska deeyaan waayo midabkooda waxa ka fiican Ilaahay oo qadariye marka inay daawadii waxa iska deeyaan baan kula talaa anaka ma kala ما سنت على سيد قرح برنامج daawadayaal weli waxaad ku guda jirtaa barnaamijkii boonbala daawadayaal haatan waxa ila jooga Keenan oo dabcan aad garanaysaan barnaamijyo badan hore uga soo qayb qaatay Keenan ku soo dhaw barnaamijka boonbala waraad waa dhawaaday barnaamijka boonbala show aad u weyn Keenan su'aal baan rabaa maanta inaan ku weydiiyo in kasto meesha keesa barnaamijkaada la soo waxaan rabaa inaan halkan fariin uga reebo gabdhaha midabkooda bedela waxaan leeyahay gabdhaha u eeg horta saabuun biyo ku dhaxdhacday waxaan leeyahay oo dhanka dabeeshana markii laga maro sida